ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa si wada jir ah xariga uga jaray wadada Bandar Qaasim oo haatan loogu magac daray Dr. Kadari taa oo dhexmarta degmooyinka Cabdicaziz iyo Karaan waxaana dhismaha wadadani kaalin ka qaatay ganacsatada shirkadaha ku leh gudaha dalka Soomaaliya. munaasabad kooban oo xariga looga jaray dhabahan ayaa waxa ka soo qayb galay tiro xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyadoona si weyn ay u soo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan degmooyinkaas. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa bogaadiyay shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu dhiiran yihiin inay dib u soo celiyaan bilicdii uu lahaan jiray dalka Soomaaliya. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in wax lagu faana ay tahay shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ganacsatadooda in ay dhistaan wadooyinka burbursan taasina buu yiri in tusaale fiican ay u tahay dib u soo noqoshada rajada ummadda Soomaaliyeed. waxaana golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay ku bogaadiyay in ay la shaqeeyaan bulshooyinka Soomaaliyeed maadaama buu yiri in ay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan isugu nimid waxay tahay in la furay jid ay dhiseen dadka Soomaaliyeed. qiimo weyn ayay ku fadhidaa inaan soo gaarnay waqti ah inaanan cidna wax ka sugin. inay shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintiisu ay gartaan cidda keliya oo dalkan dib u dhisi karta keliya inay yihiin dadka Soomaaliyeed. in shacabka Soomaaliyeed ay gartaan inaanay jirin cid u maqan. in haweenka, dhalinyarada, culummada, madaxda, siyaasiyiinta inay kulligood isu yimaadeen la tashadaan ganacsatadooda la dhiso jidadka waa wax runtii lagu diirsado. taasina waxay tusaale ka tahay in dalkan rajadiisa ay soo laabato. shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa way dhammaatay waqtigii aan wax sugu jirnay. way dhammaatay xisaabtan la'aantii. ha aqbalinina gobolkana ha ka yeelina, wasaarahana ha ka yeelina, madaxweynahana ha ka yeelina. weydiiya canshuurtii nala ka qaaday maxaa lagu bixiyey. noo imaadanna weydiiya. maamulka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay tan iyo markii uu xilka la wareegay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale dib u soo celinta wadooyin burbursanaa muddo sanado ah isla markaana muhiim u ahaa isticmaalka shacabka Soomaaliyeed. inkastoo ay xusid mudan tahay in weli ay jiraan wadooyin kale oo burbursan